kulankan oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha maxkamadda guud ee dowladdeegaanka Soomaalida mudane Cabdullaahi Saciid Cumar ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka socday hay'adaha cadaaladda sida booliska garsoorka maxkamadda ee ka howlgala gobolka Qoraxay degmada Qabridahar iyo maamulka magaalada Qabridahar sidoo kale kulankani ayaa waxa goobjoog ahaa oo ka soo qayb galay qaar ka mid ah waxgaradka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqana magaalada Qabridahar waxaana lagaga arinsanayay kulankani sidii loo eegi lahaa adeeg bixinta hay'adaha cadaaladda caqabadaha ka jira iyo sidii loo siixi lahaa si ay bulshadu ay u hesho adeeg cadaaladeed oo hufan gudoomiyaha maxkamadda guud ee dowladdeegaanka Soomaalida mudane Cabdullaahi Saciid Cumar ayaa ugu horeynba kulankani hadal ka soo jeediyay in yaro hordhacaan rabnay inaan bal ogaano dareenka dadweynaha bulshada gaar ahaan odayaasha dhalinyarada dumarka bal adeeg bixinta maxkamaduhu sidee yihiin inaan idina wadaagna dareenkiina dareenka dadku muxuu yahay adeeg maxkamaduhu sidoo yihiin inaan inta idina wadaagno way maanta ujeedooyinka ana marka halkan aan u nimid markaas idinka raygiina rabaa gaar ahaan odayaasha dhalinyarada haweenka bal rayga ku saabsan gaar ahaan garsoorayaasheena idin adeega ee idin siiya garsoor anshaxoogu siduu yahay waa ta koobaad talabaad adeeg bixinta maxkamadaheenu siiyiin halkay marayaan idinku maxaad siinaysaan darajo nooc maad siinaysaan taasina waxay noqonaysaa talabaad ta saddexaadna waxaan markaa gudagelaya hay'adaha cadaaladdeenu soo wada shaqeeyaan booliska xeer ilaalinta maxkamadaha jeelasha wada shaqaynta ka dhaxaysa hay'adaha cadaaladuna idana waan eegnaa bal siday tahay marka idinku markaa taladaas aad siisaan hadda bal wixii gulaanada inoo dhankana kusoo gulaanadi doonaa hadda raygiina maanta aadna siisaana wuxuuna noqonayaa gashi aanu gashi uga dhigano isbedelkaan wadno inaan ku sameeyno hay'adaha cadaaladda agestooda qaar ka mid ah waxgaradkii ka soo qayb galay kulankan ayaa cadeeyay inay isbedelkii kadib ay heleen adeeg cadaaladeed oo hufan xilli waxaana soo martay la yiraahdo hay'adaha sharciga ee Qabridahar waa jeel qofka la soo masaafuriye xaalwaaga yaa lagu soo qoraa la dhihi jiray baana soo martay qofkii in yar wanaaga laga sheegana markaaba in ama xilkaba ku waaya ama laga bedelo meel kale la geeyo maadaama marka waa goob dhaqan celis baa yaa lagu madadaalan jiray marka meelaha laga sheekaynayo hay'adaha sharciga tii cabsideed weli waa qabnaayo haddii aanu qofka naga fiican amaano arama sidii waagi hore idinku dhacdaa oo dhaqan celintii laydinku celiyaa waa nagu jiraa shakigaas laakiin isbedelka dhacayo waxaa weeye aad buu u saameeyaan leeyahay dalka odilba iyo gaar ahaan geedi socodkii hay'adaha waxaa weeye sharciga waxaa ugu horreysay laga bilaabo ee cadaaladdu ka bilaabatay waxaa qofkii inuu ammaan dareensan yahay markuu kiiska soo galayo ama dembiilaha yahay ama ehelkiisii la socday yahay booliska markuu tagahayo markuu maxkamadda soo galayo jiloodka markuu soo galayo inuu horta ammaan dareensan yahay qof isagiiba cabsan hayo oo waxaa weeye garsoorkii ka cabsan hayo oo booliskii ka cabsan hayo oo xeeraaliyihii ka cabsan hayo oo ruuxdiisiiba aynay joogin cadaalad hataa haddii loo sameeyo cadaalad uma aha anigu hay'adahan nabadgeliyada iyo cadaaladda wax danahoo aniga shakhsi ahaantayda iga gashay ma jiro xafiisyada shakhsi ahaantayda wax danahoo iga gashay ma jiro dacwo igama gelin maxay ahaydey kama aanan raadinin laakiin markii aan eego bulshada iyo maxay ahaydey deganaanshaha iyo xasiloonida markaan eego waxaan leeyahay anigu waa wax lagu diirsaday waa wax cadaaladda u dhow waayo bulshadii baan ku dhex jiraa bulshadii baan maaragtay haddii la odayaasheedii iyo wixigeedii nahay wax cabasho ahoo maaragtay haddii la yidhahdo la taaban karo oo cabasho ah oo arrintaa nimankaa aanu hayaa anigu ma jiro maxamed ahaan marka waxaan leeyahay markii aan horay maxay ahayd aanu ogeyn
cadaaladii hore iyo maxkamadii hore iyo siday ahayd aan u ogeyn ee isbeddelkani yimid waan ku diirsanaynaa waxaana leenahay horey u sii wadeen meel aan ku doorin lahaa oo jirta maxkamadaha dadka ka shaqeeya meel shaqo laga hayo gobol ha joogo kelil ha joogo meel aan ku doorin lahaa maba jirto waayo dhibna haystay oo inaan isku dilla ka yaabanayn bayna kala furfureen umaati noogu shaqeeyeen anigu dhankaan ka joogo kii kale dadkii kale risaysanay dhan u jooga anigu warmahay laakiin anigu waxaan sheeganayaa oo dadkii aan la joogayna aan ku arkayay si cadaalada oo xaq ah ama hadday shareeco ahayd ama hadday ahayd dastuur ta degmada ta gobolka ta nooc kasta booliska wax dhib oon kala kulanay ma jiro gabagabadii gudoomiyaha maxkamadda gobolka Qoraxay mudane Cabdullaahi Cali Gaani ayaa sheegay inay sii xoojinayaan adeega cadaaladeed ee bulshadu ay ka marakacday Lumaan Cabdi Axmed SRTV Qabri Dahar